maalinta sabtida insha allahu tacaala ayay waxay keeni doonaan shirka golaha ammaanka. halkaas ayaa warbixinta dhammaystiran lagu wadaagi doonaa. taas waa midii guud. sideedana xaqa haddii afka laga qabto feero ka dilaaca. arrintan iyada ah waa xaq xaqaana soo bixi doona. waxay shacbiga soo ogaan doonaan wax allaala wixii fidnada waday ayaa soo bixi doona. acuudu billaahi min ashaytaan rajiim. bismi illaahi raxmaan raxiim. allahuma salli calaa sayidina wa nabiyina maxamed sala allahu calayhi wasalam. waadi salaam dhammaan asxaabteeda. ugu horeyn waxaan rabaa halkan horta inaan ka bixiyo warbixin warqaddii uu soo saaray madaxweynaha, taasoo ah in kiiskii gabadha ikraan loo helo cadaalad iyo mataqaanaa xaqiiqdin rasmi ah. madaxweynuhu wuxuu guddi mataqaana ku magacaabay xaqiijin ah oo ka tirsan yahay xeeryaha guud ee qaranka, xeeryaha maxkamadda ciidamada, iyo xubin ka socota ciidanka xoogga, xubin ka socota ciidanka booliska, iyo xubin ka socota ciidanka nabadgelyada soomaaliyeed. kiiskaas ayagaa loo xil saaray, ayagaa soo baaraya. maalinta sabtida insha allahu tacaala ayay waxay keeni doonaan shirka golaha ammaanka. halkaas ayaa warbixinta dhammaystiran lagu wadaagi doonaa. taas waa midii guud. sideedana xaqa haddii afka laga qabto feero ka dilaaca. arrintan iyada ah waa xaq xaqaana soo bixi doona. waxay shacbiga soo ogaan doonaan wax allaala wixii fidnada waday ayaa soo bixi doona, iyo in allaale intii ka dambeysay kiiskii dilkii walaalkeen injineer yariisu loo geystay oo runtii aan ka qaracnay ilaa haddana xanuunkiisa welina hayo. waxaan la wadaagaynaa mar kastaba mulugta iyo mataqaanaa iyo naxdinta caruurtii iyo xaaskii iyo ehelkii uu ka tegay injineerka, oo ah qofaan aad u jecel laha, muwaadin dhaba oo soomaaliyeed oo xalaal ayuu ahaa. taasi waa taas. xaqan waa soo bixi doona insha allahu tacaala. tan kale waxaan rabaa shacabka soomaaliyeed inaan ku baraarujiyo oo ay ogaadaan walwalka ay ka qabaan warqaddii uu soo saaray ra-iisul wasaaraha oo weli lacagaha ku dejiyey. waxaa jirta ra-iisul wasaaruhu waa ninkaa aragtida hurdaaye ah. hurdaaye waxaa waaye lacagtan sida ay tahay iyo qaabka ku shaqaysa wax wara kama hayo. waxay ku jirtaa broses dheer waaye. soomaaliya siaad ogtihiin markii dowladdii maxamed cabdullaahi farmaajo dhalatay waxay adduunyada ka codsatay in laga cafiyo deenta. maadaama deenta ay codsatay in deenta laga cafiyo, waxaa lagu xiriyay dowladda soomaaliya shuruudo ah in ay la yimaadaan transparenty, mataqaana wax cad oo aan corruption iyo musuq maasuq ahayn, oo ay maaliyad hufan oo mataqaanaa aan ku jirin corruption inay la yimaadaan. dowladdu imtixaankaas waa gashay, waa ku guulaysatay. lacagihiina bar waa laga cafiyey. marka inta dhiman si loo dhammaystiro, world bankiga iyo IMF-ta waxay usoo magacaabeen guddi la socda dhaqdhaqaaqa maaliyadeed ee dowladda oo gacanta ku haya oo la soconaya hadba meesha ay wax ku baxayso, lacagtaas meesha ay ku baxayso, qaabka loo jaangoyhayo. guddigay soo magacaawdeen wasaaradda maaliyadda iyo IMF-ta iyo world bankiga ka kooban. waxaan rabaa inaan idin xusuusiyo, guddigaas waxaa ka mid ahaa ra-iisul wasaaraha dowladda suudaan, maanta dowladda suudaan ninka maanta ra-iisul wasaaraha ka ah ayaa guddigaas ka mid ah oo xamar ku shaqeynaya. sidaasay lacagta ku baxaysay. waxay ahayd nidaam maaliyadeed oo cad oo aysan ku jirin wax corruption ah. maaliyaddan waxay ka imaanaysay dekadda iyo airbortka iyo canshuurta gudaha laga qaado iyo miisaaniyadda oo lagu kabayay dowladaha qatar iyo dalka turkiga. waxayna ku baxaysay lambar askariga, shaqaalaha, xildhibaanada, mashaariicda la fulihay, waxaasoo dhan waxay ku baxaysay si cad oo ay wada og yihiin IMF-ta, world bankiga, wasaaradda maaliyadda, bankiga dhexe. sidaasi ku baxaysay iyo guddiga loo soo xil saaray. waayo dowladdu waxay rabtaa in laga cafiyo deenta dhimanoo kale. marka shuruuddaas lagu xiray, markii la ogaaday heerka mataqaanaa ay ka gaartay dowladdu, world bankigu wuxuu ugu deeqay dowladda soomaaliyeed 400 milyan oo ay sheegeen in la aamini karo maanta. 400 milyan loogu deeqay oo loogu talagalay horumarinta iyo dibdhiska dalka. sidaas ayay lacagtu ku socotaa. ra-iisul wasaarena ma celin karo, mid kalena ma celin karo. lacag waa lacag saas loo maamulayo waayo. shacabka waxaan rabaa soomaaliyeed inay taas ogaadaan. waxaan kaloo rabaa inaan halkan aan ku darsado. waxaan arkaya axmed macali fiqi
oo arrinta ikraan dhahaya cadaaladda loo raadsiyo axmed hadduu cadaalad raadinayo maamulka uu ka tirsan yahay ee galmudug oo wasiirku u yahay ee shacabkaas galmudug ee gobolkaas ku nool oo u dhaartay asaga maalin daa'ima waxa ka dhaca hoostiisa waa ognahay doraadaa ugu dambeysay 2 wiil oo dhallinyaro ah iskooley oo xamar fasax u yimid oo isboorti sohotiin eeja oo 19 jir 18 jir ah ayaa inta gaari lagula dilay laga degay ayaa la dilay dadkii dilay sooma qaban xaqoodana kama hadlin saraakiil 6 gaarisaa lagu dhameeyey meesha la leeyahay baraxley banaanbaxa ka dhacayo ikraana mataqaanaa lagu banaanbaxa waxaa leeyahay xadaad heesho 8 qofood oo digil iyo miriflo ah ayaa lagu xasuuqay aawa cadaaladooda aawa xaqoodii dadkaas dhiigooda aawa xaq ay lahaayeen aawa xaq ay sharci ku lahaayeen aawa dadkii maamulka ka shaqeynaya wax ka hadlay iyo wax loo soo qabtay iyo wax loo soo xiro maaragtay marka gacmo daahira wax daahiriya waxaan leeyahay adeerkiiskaas kuma deeqo hoostaada qurusan hoostaada ka shaqeeya midda kale dadka ugu qaylada badan leh waayo kuwa maanta ka cararaya kiiskan waxaa weeye ra-iisul wasaaraha in la furmo ogola wasiirka ku-xigeenka warfinta waa ogtihiin in uu ka been sheegay mataqaana nabadsuguda gabadhaas waa la dilay si ay shacabku u kacaan caldaala waa ogtihiin waxa uu ku dhaqmay waa ogtihiin idaacaddii wareegtada madaxweynaha in laga baxshay ogtihiin taasna la geliyey waa ogtihiin inuu ra-iisul wasaaruhu soo garab istaagayo markii cabdullaahi maxamed nur dhadhaarihay waa ogtihiin inuu garab taagnaa oo ay tahay dagaal cad waxa uu ra-iisul wasaaruhu xilka uga qaaday fahad yaasiin xilka uga qaaday wasiirka mataqaanaa amniga qaranka waa intaas inaan kiiskaas marhabaabsho ayay ujeedadota laakiin xaqa haddii afka laga qabto feeru ka dilaaca xaqaas waa soo baxa waan la caddayha shaqaduna waa socotaa dad macquula oo dhexdhexaada oo wanaagsana loo xil saaray oo la og yahay xeelyaha guudaha waxaa ku jira maxkamadda ciidamada xeelyaha guudaha qaranka ku jira askari booliiska ka socda iyo nin ka socda mataqaanaa militariga iyo nin ka socda nabadsugudda ayaa loo xil saaray islaanta gabadha habarta waxaan leeyahay hooyo adiga waxaad u hadloweysaa garab waxaa lagaa rabaa gabadhaas kiiskeeda haddii lagu baaraayo meel kastoo gabadha kiiskeeda laga baaray inaad aamintaa lagaa rabaa marka waxaan leeyahay maamada garab ha noqon dhexdhexaad noqo warqadaa laguu soo dhiibay caawa akhriyaa lagu yiri walaalkay insha allah isu joognaa insha allah ay walaal macaan dhexdhexaad ka noqo qof allaale qofkii gabadhaada arrinteeda ka hadlaysa inaad soo dhoweysid ayaad xaq u leedahay laakiin inaad afkii mucaaradka aad ku hadishid adigaaba arrintii fasilaysidoo waxaa lagaa sheegaya eedda macan dhabkaa ahoo kiiska waxbaad ka og tahay gabadhaadan lacagaad qaadatay adna lacagaad qaadatay hawsha waa sidaas waxba haysdaanin eedda gabadhaada waxay tahay ayaa soo bixi doona hadday fiican tahana waa fiicnaan doontaa hadday xuntoo dhibaato geysatana waa soo baxaa sharcigaa soo saaraya wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu alla sheergareeyo walaalahay xaalku waa degan yahay dhibaata ma jirto dalku waa nabad iyo barwaaqo insha allahu tacaala guul iyo gacmo buuxa ilaahay ha la baryo dalkana midnimadiisa lagu daalo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu